maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun dil ah ku riday rag loo haysto qarax dad badan ay ku geeriyoodeen ka oo dabiiqadii sanadkii 2018 ka dhacay suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Rag loo haysto qaraxa ayaa waxa lagu kala magacaabaa Xasan Cali Barre, Sayid Cali Aadan Nuur, waxaana xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay 26 bishii November ee sanadkii 2018 isgoyska Kaabagoday ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday Xasan Cali Barre halka Sayid Cali Aadan Nuur lagu xukumay xabsi daa'im, waxaana maxkamadda ay sii deysay Muxudiin Maxamed Aadan oo lagu waayay wax dambi ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuurte ayaa warbaahinta ugu warbixiyay xukunka dilka ay lagu riday ragga lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay Muqdisho. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. sidoo kale eedeysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa Kaabagoday kadibna uu gaariga shil la galay, sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaabagoday, isagoo sheegay in eedeysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaabagoday. markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay, sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday. intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedeysanuhu uu isku dayay inuu baxsado, hase yeeshee ay qabteen. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintida kala ah koow cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad iyo labaad, labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa Kaabagoday degmada Wadajir 26 bishii 11aad 2018, saddex sawirrada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa, afar furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedeysane Xasan Cali Macalin Barre. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy, labo Sayid Cali Aadan Nuur Stiin Boy ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah, labo dambiile shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Stiin Boy xabsi daa'im. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan. wabillahi tawfiiq. Cabdi Fataax Muumin Ilka Case, CNA TV, magaalada Muqdisho.